السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل حال ومكان وشؤون الحياة. إلهي سبحانه وتعالى أيام هلا بفضل ومن وإحسانه الله وقال سؤال الله سؤال أغرب مرتب بن آدم نقدي سأكل قرن محا سحن محا قلد محا أسود جوكت محاكم وغنيكم أديك تاي يلا هلا يسا يا ديدن تاي يا كسور جدا يا أدقيسا شلي يا أدقيسي ما أنت يا أدقيسا dadka uu sidee yihiin kuma meed barya xagee laga soo dhacay xagee loo socdaa waa maxay afgambi umadeed afgambi qabiil waa maxay xurriyad ilaahay bixiyo waa maxay waxa ku dhacay dadka hawiye xagee ka soo dhaceen xagee ku dhaceen caawa xagee marayaan xagee loo wadaa bini aadanka caqliga lahu sidaan oo kale markay noqdaan maxay sameeyaan dadka nagu dhibka haysta sidee uga bixi doonaan dadka naga dhibka haysta sidee uga bixi doonaan yaa u maqan waa maxay shaksi la afduubay waa aragteen shaksi la afgambiyana waa aragteen laakiin ummad la afgambiyey weligeen ma aragteen ummad la afgambiyey waa hawiye oo odayaalkeedii ay leeyihiin ha laydin afgambiye iska samra وأمد هوية تاريخ هوية ولا أفغان بي ديقودي ولا أفغان بي كرامتودي ولا أفغان بي شرفتودي ولا أفغان بي وعليكم السلام ورحمة كيسر أفغان بي وحالي هذا ما هاد كرتي أفغان بي محاورت أفكاغا حوس وقدي حر ماهد ما هاد كرتي هوية أو دن ولا أفغان بي هوية ما درين سنة محمود علي وقاس ما درين سنة ما درين سنة إنا حاد ما درين سنة غير رأي الشيخ شريف ما درين سنة لكن وحي درسيهن ديوردا اللي يقسوا عليه غير مالكي فرماج أو حبة يودر بيضة أو جلبها كله فصلي واحد لي حبت كليها كسوارتي نوايا وحن لا يهي ورنمك هبرق ديري أبقى الإمور صدي فرماج محوكو سمايا إلا أن قبله أدري إله هذا أمر إله هذا أمر مونيكو لوينسكي قبل قبل يهود أحد وهدي إلهي كورن كلينتون عرب كأسوة تاكتي الله دري إله قال إسكارك ما دقاقة يقف كهويها مرسلها أبقى لك أبقى حيك لا يغال حوالها الرم قيق خروك الإمنا إلا وحي وجيدا بل يوسف قالت كالها هاد العاو عرر تابد محل كان تابد قدوميها أغلبية يوسف قال محل كان يقول جقوة إله بان كل أرض فيري بني آدنك وحل وسمي وحا جرا بلاغ ميل قرصون إيو أساسينيت دلئة إيو أي إنيورانسي يورارين أما جاهلينتا كو جاهلك إلا قاطو مدى أفرادنا محي نغطي مورال تورجر سي بابليك إن لهم مورال تورجر كرايو فرماجو مركو كوات هو بابليك مورال تورجر وكو سميه وحو كو يري بوغا وكو قري واعي وحو أشاقي إن دادكودا وحقرتا دقومادا عن كاقاتو جلباhan dhulka aan u dhigo waxuu ka qaatay doqontii waxay la mid tahay ayaduna waa qayb ka mid ah in haddii ilaahay ku roon yahay kuwooda wax garanaya kuwooda doqonta la kor saaro wuxuu ku sameeyey assassinate sida galaal u dilo kale wuxuu ku sameeyey blackmail gabdha aan loo soo xulay intii sifa waa lagu sameeyey hawiye
jarmalka waxaa lagu jabiyey naagay ahaynaan maqlay jarmalkii jabay naagaa lagu jabiyey jarmalkii jabay naagaa lagu jabiyey sidaa awgeed waxaan rabaa inaan kuu sheego dhaqanka farmaajo uu kula dhaqmay dadka hawiye waa midka maantay sababay in odayaal fiiri hadda maxamed cali ugaas balag miila laga hayaa waa hubaa in laga hayo aadan hubaa 100% geed iskama siibaa waaye ugaas ma aha haa carab laalaada iyo alaab haraga laga hayaa waa midkan cali ugaas sheeganay haa kulli waa laga hayaa caawa noo ballana khayra ma hadli karaa wuxuu ogyahay ma sheego ma hadla ma sheego ma dhaqaaqi karo ilaahay baan ku dhaartay dumar waa la fuuli jireen ragna dumar waa fuuli jireen waxaan caadi waayey naagta ay laftigeeda adiga ha isa soo sheegto ilaahay ha idinku ceebeeyo kuwa naagaha qaba oo naagaha loo soo diray u dhunta allah idin ceebeeyo bal waa kaasi yuusuf garaad iyo cumar finish iyo fili hal nin ma badbaadi hal nin a badbaadi ma taqaani ninkaas yuusuf madaali la yidhaha maxaa badbaadi yuusuf madaali yuusuf madaali wuxuu ka horreeyey kacaanka hirgelinta isdhuuq iyo bashuuqsi iyo naagay filan ka soo duubay carabka u laalaadi yuusuf madaali waa ka horreeyey waana sababta u badbaadi waana sababta u badbaadi waa sababta u badbaadi yuusuf madaali waa shakhsiga abgaalka ee afartii gobernatore ee farmaajo kow isaga taabid labo ninkii la cuno yirisow iyo midkan yirisowna waa laga hayay miskiinka allah u naxariistee cumar finishna warkiisa badaa foora u joogta afar gorma idin sheegi jiri kanada ka timid make up mid u marisa midda masaajada ku fiican afara u joogta cumar finish rajaha ka sugan wax rajaha ka sugan nimankaan aragtana wada hadlaayo oo qaylinaya aw islaw maartay islaw daba dheer sa u yiri waa cararay wasiirka amniga lagu leeyahay wasiirka amniga qabiilkaaga yaa way abgaal yaa ka taharti abgaal yaa ku riday khaliijadeedii maxaa u hadli weysay waraaqdan wallaahi waraaqdan ma ku qorna warqadan ma ku qorna be mal iska ridaa ra'iisul wasaaraha warqada asoo banaan baxayaa la buursaday yahuud maatihiin oo sii lahaa waxaan rabaa marka war ilma adeerayaalow dadka kuwii naloo isticmaalay kuwa kasii liito la keeni doonaa kasii daran waxaan rabaa marka inaan idhaahdo hawiyow ma qaadanaa in hawiyo dhan farmaajo afgambiyey weligaa maarta qabiil la afgambiyey weligiin ummad qabiil dhan oo la afgambiyey ma aragteen dowlad la afgambiyey qabiilka la afgambinayo wuxuu leeyahay 200 oo telefishin uu leeyahay qabiilka la afgambinayo wuxuu leeyahay 20 iyo 30 raadiye qabiilka la afgambinayo wuxuu leeyahay 5,000 oo wariye qabiilka la afgambinayo wuxuu leeyahay ciidanka dalka joogo dhan qabiilka la afgambinayo wuxuu leeyahay cashuurta Soomaaliya ay bixiso oo dhan qabiilka la afgambinayo wuxuu leeyahay caasimada lagu afgambinayo qabiilka la afgambinayo wuxuu leeyahay ciida la isku afgambinayo qabiilka la afgambinayo wuxuu leeyahay dadka maalin kasta la dilo qabiilka la afgambinayo wuxuu leeyahay kuwa la afgambinayo isaga waay bal ilaahay ku dhaashay xisaab farmaajo wuxuu afgambiyey roob la lagu leeyahay wax weyn laga dhigaa laakiin dadka hawiye weli waxaysan dhihin war farmaajo wuxuu afgambiyey hawiyo dhan wuxuu afgambiyey ma bahadli kartaan afgambi maxaa la dhahaa horta afgambi waxaa la dhahaa wax ma ooyi kartaan siyaad barre haddaad la socotiin hargeysuu tegey wow way ku dheheen waa xabadeeyey isbartiibaduu tegey barbaar wada qoslaysyo markii la isku soo baxay barbaar wada qoslays baron baa ka qayb galay dhig wow ay ku dheheen jimca dhiig wow waa lagu dhahay siyaad barre wuxuu isku xiri jiray waa ay xamatay bannaanbax maaya waa ay xamatay farmaajana in hal qof oo asaga ahayn aan la ammaano kaligiis in la ammaano rabaa dilaasare farmaajo haddii aan la dilin ee la iska sii daayo waa inuu dilkiisii wadaasaa la dili waaye dumarkan durbaanada u tumaysaa la dili waaye raggu waa inay darin yeeshaasaa la dili waaye dictator waa inuu dallacasaa la dili waaye dad waa dilis dagaal waa kaalis dulucdu waa weerar dakaniya colaad waa hergelis
dabarjar waa doonis ma garatay gabaygii wuxuu ahaa tabantaabo waxaan rabaa marka inaan idiin sheego dadka hawiyo waxaan rabaa dhammaantiin inaad arrinkan shaqo gur u qaadataan ummad dhan oo la afgambiye ma aragtin marka waa hawiye ummad dhan oo afgambigeeda ay ka qayb qaadanayaan odayaal hawiye laa ilaaha illaa anta subxaanaka anaa ugaaska hawiye anugu waxaana ugaaska hawiye beesha ugaaska weyse iyo aqoonsada war hawiyow iyo aqoonsada oo caanaha igu soo shuba oo tufta igu soo tufa si ducadayda loo aqbalo hawiyow waxaad dhahdaan jamaal waa ugaaskeenna dhammaantiin weliba waxaa idinka codsanaa inaad caana igu shubtaan inta masawirkayga qaadaan ugaas iga dhigta si ducadayda anigu waa idin duceyna kal ilaab wallaahi bilaahi tullah man idinka isbaaraysanaya dictator maaha weliba ugaaskaas maalinkii hawiye ugaas samaystaan waa maftuux waa fura lugtaan fura laakiin waxaan rabaa inaan baro waa maxay ugaas dadka hawiye war gabdhaha hawiye iyo dhalinyarada hawiye iyo ganacsiga hawiye iyo caqliga hawiye iyo ilmihii hawiye oo eritrea laga iibsaday dadkii dhalay waa la afgambina ummadana la afgambiyey fiiri dad tolkay hawiye markaan leeyahay uma furna waxaan u furnay fuyuuska fahamka ka xiran fuyuuska fahamka wuxuu yahay ummad dhan ayaa la afgambiyey laakiin ma ogin ummad dhan ayaa la afgambiyey oo la yiri ma hadli kartaan afgambis haddaad maqashid waa dad loo diiday inay ooyi karaan dad loo diiday inay qosli karaan dad loo diiday saacaddii rabaa inay soco karaan dad loo diiday inay shiri karaan inay wanaagga isfari karaan inay xumaanta iska reebi karaan ta'muruuna bilmacruuf wa tanhawna cani lmunkar ayaa loo diiday hawiye fircoon ma haysta war maxaa dhihi abu xasanow ninka la yidhaahdo jamal ha waa cabdiraxmaan maxamed waxaad soo kula hadlaya waa ku fahma waxaan ku leeyahay ha ii boobsi programkaan geli lahay awiye nimanka la yidhaahdo ha adiga nimanka siyaasiyiinta oo hadda ka hadlayso nimanka siyaasiyiinta oo aad leedahay waxbaa loo soo diray iyo gabaray ay saas yeeleen aad leedahay mujeedaa ha anuu waxaaba ka baqaaba adig gabar loo geeyo wax ka duubtay dhuuqdhuuqeen iska day in ayaga la dhuuqdhuuqaaba ka baqaaba farmaajaha jelbaha dhuuban haddii ilay kuran yahay yuusuf garan daba uu ka dhuuqa ma lehe wada farmaajo kaliya maaha meeshaan fiiri taabid haddaba waxaa leedahay waa la dhuuqay maya taabid maya hadda taabid maxuu la aamusan yahay fiiri farmaajuu taageersan yahay waa baqa fiiri taabid kowle taabid iyo madaale iyo may madaale laan dheero waay war madaalaha iga darin war madaale naag looma dirin taabid naagaa loo diray maahe daciif waaye asi yuusuf garaad oo kalaa sanbaloshe nabad sugud waaye adi nabad sugud maa loo soo dhawaa karaa naagtiisa hataa uma soo dhawaa karta naagtiisa nabad sugud looma soo dhawaa karo shakiyow qabaa taasuu ku badbaadiy juxa jabhada u ahay SNF nin jabhada looma soo dhawaa karo laakiin taabid xagga u ka yimid asaa loo raxay barida ma garatay ji hadhow taabid 2,000 qof aa muqdisho lagu dilaa hal mar kama hadli karo aw sabri qarafaan khayr ma hadlo islaw aawey ordagayso madaa kuu sheegaa hadda ma waxay kula tahay cumar finish inuu hadli karo cumar finish iyo qoorqoor iyo hadalka sugumayn iyo caaliyare iyo ninka la yidhaahda ugaaska hadda ka hadlaysa iyo ugaaska laftigiisa ugaas habaraa loo soo diray habar laa ilaaha illa allah war waxa dhagayso firi maaqaan dadkan habar loo soo diray waa ka weyn waxa ay ku dhe ونهاد فرماجة شغب بدنا وكقبت فيري كي عقلي هذا كدلي المهم ما ربا نيو وحن كهل ربا نك اللي يجي عيال الحسين نين ما كان كهل ربا يسوق بجبه ومريحان هنا اوكي بقول لها هاي أنا قصدي هويانا وح نجاجو أن ضد كمان تدوري لك فرماجة هو كواس حتى عمرك أنت نون حتى إنه حل دبنا نقوم مثل أين حل دبنا نقوم مثلين كانوا أو حسنوا عاوها أوغانيسا
adiga iyo gabadhaadu inaadan sheegi karin nasabiyad maxaa yeelay waa farmaaja qabiilka hawiye afgambiyey afgambis waxa la yihahdaa dadku inaysan hadli karin ma garata saas waa qabiilkii dhammaaya la afgambiyey marka ayaan la xuseenaan ka hadlaya ku salaamaya libax waxaan rabaa walaalayaal inaan usoo noqdo ninkan ina dhegeysta ninkan caamcaamaa la yihahdaa 1888 baadiye ka yimid wuxuu u gafay beesha xawaadle ninkan caamcaamaa la yihahdaa qabiilka ma aqaano ku yeed walaalkaas aan isleeyahay karaabkii buu jabiyey haye walaalkaas waxa weeye ayaan la xuseen cabdi oo ah shakhsi sheegtay inuu yahay wariye laakiinse mararka qaarkood aad isleedahay marka aad fiirisay qiimeyntiisa mugdi badan baa ku jira sheegashada wariyenimada ninkan wuxuu baadiye ka yimid 1988 wuxuu u yimid reer cali ilay oo ah niman habrajiyo cabdullah xasan wuxuu joogay 2 sano xamar markii gadoonku dhacayay wuxuu sheeganayaa beesha mariixaan inay dhacday hantidii Soomaaliyeed wuxuu sheeganayaa ayaan la xuseen inuu yahay xawaadle wuxuu sheeganayaa xawaadle inay siiyeen dad aan qiimo lahayn aan isbarbardhig yar ku sameeyo ninka mariixaanka oo kibray anuu maadaama aan ogaaska hawiye ahay waxaan rabaa ayaan la xuseen ma yaqaano qabiil kama hadlo laakiin ayaan la xuseen waxaan rabaa example yar inaan soo qaadano waxaan isbarbardhig ku sameynaa caawa in yar xawaadle iyo beesha uu sheeganayo mariixaana xawaadle horta jiira maskiin ma joogaane waa nimankii laandheerahayo beled xaawo tegey waxaan rabaa cali sabriye xalana wuxuu ahaa nin xawaadlaa oo ayaan la xuseen ay qaraabo yihiin wuxuu qabay haweeye maxamed siyaad barre waxay hoysay 2 ilmaa 19 janaayo 1991 ayaa 10 xabo lagu nabay inuu meydaan waa looga tegay xaaskiina waa laga watay beesha xawaadle asagoo ninkii oo dhaawacay meesha ka qaateen guriga hooyooyinka agtiisa waxayna geysteen gurguurte beesha xawaadle samatalis 4 samatalis adeerkood waxay qabteen diiriye maxamed siyaad barre waxaa loo geeyey ninkii dhaawaca ahaa cali sabriye xalane diiriye maxamed siyaad barre marka la dilayey cali sabriye xalane waxba kama qaban oo walaashiis qabay laakiin xawaadle waxay badbaadiyeen diiriye maxamed siyaad barre oo 5,000 oo qoys afgooye maanta ka barakiciyey waxaan rabaa waxau sheegtay ninkaanu la leeyahay baadiyaha ka yimid oo uu ku gafay beesha xawaadle waxauna sheegtay kacdoon la dhihi jiray ha noolaato waxa waa kacdoon caan ah oo la yaqaano dadka ku dhintayna waa la yaqaanaa qabiilaadka ahayna waa la yaqaanaa ha noolaato waxay ahayd kacdoon looga soo horjeeday gaalada ma ahayn abtirsi beel wagardhac layidhaho dhaba degta ma ahayn ha noolaato waxaa ku geeriyooday ayaanle xuseen 2 adeeradiisa midka koowaad wuxuu ahaa iska dhaaf 7 qof oo xawaadla oo ku dhimatay laakiin ayaanle xuseen waxaa ku dhintay 2 adeeradiisa oo la kala yidhahdo ninka koowaad axmed waxaa la kala yidhahdaa maxamed roble naanistiisu waxay ahayd legma tage wuxuu ku dhintay ha noolaato waxaa ku dhintay nin kale oo adeerkiisa oo la yidhahda cadow axmed guuleed oo asna ah ayaanle xuseen adeerkiis dadkii ku dhintay 80% ciddii ahayeen waa la yaqaanay haybtoodana waa la garanayay dadkii gabyayay xilligaas wuxuu ahaa xaaji aadan oo nin cabsiya oo dhihi jiray axyaa wadani waxaa taqaaniin dadka dagaalku meeshuu ka dhacay dadkii deganaa wagardhacuno ma joogin waxaan rabaa inaan u sheego beesha xawaadle waa beel haddii la isbarbar dhigo mariixaan 1 mar ka wadanisan ka akhlaaq badan say aniga ila tahay ka taariikh fiican ka xishood badan waxaan rabaa marka inaan u sheego maadaama aan ahay ogaaska beelaha wiye ayaan la xuseen sida anigu aanu hadlayo uma hadli karo laakiin afkiisa aniga ku hadlaya waxaan leeyahay ayaan la xuseen kama maqlin weligiis asoo mariixaan wax ka sheegaya ayaan la xuseen ha noolaato haddii mariixaan ha noolaato yeeshaan muqaawamadii mariixaana iskale baalkii la dhihi jiray isxilqaankii abukaate ninkii la dhihi jiray ou lahaa ninkii la dhihi jiray isxilqaankii ou sameeyey ninkii la dhihi jiray abwaanguurana mariixaana iskale siyaad barro fajistaa
oo ha noolaata dadka tooganayay oo talyaaniga la shaqeeyey ayaa ha noolaata iskale taariikh wanaagsan walaalayaal mariixan haddaa leedihiin 1993 bishii tobnaad xasan daahir awees iyo ina xaaji masalle oo amxaare keenay kuma aysan murmi lahayn magaalada cabudwaaq meesha dhihi jiray luuq BBC ka duuban tahay aydiid markuu tagay amxaare maydnaan keenteen 26 sano soomaaliya maydnaan isbaaraysateen ciddii idin wanaajisana maydnaan dishiin sidaa awgeed waxaan rabaa inaa idhaahdo ayaan la xuseen waa nin hawiyaa haddii aad ka warqabtid waxaad sheegatay ninkaas wuxuu leeyahay muqdisho waxaan ka qaadanay 27 maalmood hantidii taalle qofka magaala inuu inaan ku sheega waa dhamaysan kartaa hantidii muqdisho taallaan qaadan uu ku leeyahay labo muqdishoaan soo weerarnay gubadleeyow ahaa ninkii darbadii xawaadle mariixaan oo muqdisho uga dhufto warmacan dalanbaabi ku geeyey beled xaawo gubadleeyow ahaa farac gubadley anugu waxaan ogahay inaan xawaadlo walaalanahay anugu waxaan ogahay inay xawaadlo dhiigayga yihiin waxa ku jira inay iska bixiyaan jeclaa lahaa xawaadlow waxaa idiin sheegaa wallahi anaa walaalkiina xawaadlow ciidan inkama raba aniga wax ciidan inka raba male habargeedina la iiraa ayraa la iiraa weligeed isumaanan gurman laakiin midaa idiin sheegayaa waxba darbiyada a ku jirtaan ka soo baxa ilaahay baan ku dhaartay aniga haddaan dhinta adinkana waa laidin dilaa waxaan rabaa marka inaan u sheego isbarbardhigga in ay ka soo jawaabaan asagaa soo hadlay ninka la leeyahay caam asagaa soo hadlay asagaa xawaadle u gafay asagaa ku sheegay jiira maskiin keliya inay degaan asagaa ku sheegay qabiil aan miisaan layn laakiin waxaan rabaa hadday taariikhda dib loo noqonayo oo 91 laga hadlayo xawaadle waxay ahaayeen kuwii eeraboorka ka dhoofiyey cosablow ahaa diyuuraddii baled xaawa ka degtay ee ninka 6 nimo mariixaanka la saaray oo ninka xawaadlaha saaray ee ninka bambada wato mariixaanka ku jiray diyuurada raggay saarnaa xasan daahir aweesa ka mid a inta la afduubay garbaari laga dejiyey haddiiba cid la badbaadiyey oo cid laga nabad galay xawaadle iyo mariixaan isma barbardhigi kara xawaadla fiican wax qalada ha jireen wax kasta ha dhaceen laakiin markay xawaadle iyo mariixaan tahay waxaa gobsan xawaadla gobsan soomaalinimo ku gobsan waxaan rabaa ayaan leh ma aha ninkii adiga kula hadli lahaa laakiin anaa kuu sheegaya taariikhdaada ma yaqaano mana yaqaanaan xawaadle iyo abgaal iyo murusade iyo mariixaan ma yaqaanaan anaa idin aqaana caamcaama waxaad leedahay anuu qabiilka kama hadlo yaad caysa habeen kasta balo fariis ninkaas waxaan isleeyahay ayaan leh waxa uu caadaystay inuu ka hadlo taariikh waxa uu caadaystay inuu ka hadlo waxyaalahan isleeyahay waxa ay gaf ku tahay ummadda soomaaliyeed in loo soo bandhigo sidoo kale waxay ku tahay gaf magaca beeshaan ka dhashay ee mariixaan okay ninkan 88 ka yimid Ethiopia ka yimid dabad inuu ceyliyo ku tagay Mareykan okay leegama baranin inaan difaaco beeshaan ka dhashay leegama baran laakiinse inta badan weerar baan ku qaadaa waxaan isleeyahay nacaybiga ma aha laakiinse waa kalsooni aan ku qabo beeshayda beeshayda ninkan wuxuu leeyahay beeshayda ma jiro nin xawaadla inta public soo kala dhigi kara beeshayda maxaa yeelay xawaadlaha nabarka hawiye ku yaala ma jiro nin abgaal oo dhigi kara beeshayda anigu qabiili ma ahi wadani baan ahay laakiin axmed hebel wegerdhac ha noolaatadii dagaalka ee soomaaliya wada gashay 50 qof oo ku dhimatay waa la yaqaana xataa shakhsiyaadkii daaroodka ah 50 qof oo ku dhimatay shakhsiyaadkii daaroodka ah waa la yaqaana intii xawaadle ay ka ahayeen waa la yaqaana waxaan rabaa marka inaa idhaahdo hawiyow horta taariikhda ma qortaan waxaanoo kale waa wixii siyaad barra qoray hadduu ninkaanu madaxweyne noqon lahaa maxuu noo sheegi lahaa haddiise farmaajo soo noqdo maxaa la qori doonaa ay kula tahay wallaahi waxaa la qori doonaa iskaa wax u qabso iyo haddii isxilqaan iyo haddii ilay kuranay saraha muqdisho sidii wiilka cabdinuur lahaa sarahan muqdisho iyo dadka muqdisho in mariixaanku calaamada ku dhigtaan sida awrta inay suntadaan wallahi billahi tallah wallahi haddii farmaajo soo noqdo ama xilli uu sii joogo wallahi dadka hawiye calaam waa la sunti doonaa sida awrtii maxaa yeelay qofka mariixaanka ah kama xishoodo inuu been sheego ninkaas wuxuu leeyahay ha noolaato wuxuu ahaa abtirsi wagar dhaceed ilaahay idinku dhaarshay ka war saas nin u indha adag xawaadle ma ka soo heliysaan xawaadle kama soo helaysid nin saa u indha adag bal xawaadle waxaaba laga yaabaa badankiis inuu ku mashquulsan yahay hiraab wax la yidhaha war hiraab wax la yidhaho gaara lama arko wax wiil yidhaho gaara lama arko
walaal aniga ahayn malihid kor isku soo qaad ee hadal dad gobahaa tihiin ilaahay baan horta qofka bini aadamka waxaa la rabaa inuu odoros leeyahay taariikhna yaqaano waxaan rabaa marka inaan kuu sheego ayaan la xuseen kama sheekeeyo firi ayaan la xuseen farmaajo dadkii taageersanayo kamid ahaa 5 sano hore aniga asiga baxsan shaqan kasoo wada horjeednay wax dacwo noo qabo ma aragteen waana la ahayd ama ninkaanu wadan yahay waxaan rabaa marka inaan kuu sheego wagardhacanu waxaan arkay Ethiopia nahay leh oo waxaan ka tirsannahay ka xandhaare qabalaha waxaan ka tirsannahay halkaas war dheer baanu ka tirsannahay nabad meel ilaahay degan waa cagacadiin ragna waxa ma oga akhlaaqiyadka kuwa ayaga raaca oo cayrka aha waa kuwa aragtay meel ma ciyaar jecel akhlaaqiyadka noocaas leeyihiin sida awgeed waxaan rabaa inaan dhaho war dadka hawiyow aniga isoo gaara fadlan isoo gaara oo ilma adeer realo firi sabaskraabka aanu kala tagaynaayo war ayaan la xuseen sabaskraabka uga baahan yahay nimankan maxaa waay annaka 100 kun oo sabaskraabsiyeena hadirtaan hadda 100 kun oo sabaskraab ugu darayna sida awgeed waxaan rabaa walaalayaal inaan idiin sheego ninka baa dhageysta wuxuu ku hadlaayo lacagtii xamaran qaadan uu leeyahay waliba si gardarra loo soo weeraro waxaan qasabi waa inaan difaaco waxaan isleeyahay difaacidoodu ma aha kaliya inaan ka dhashay laakiin beel kastoo lagu xadgudbana waan difaaci doonaa beel low alinaba ka furtay maxaa bargeena ka socaysa ayaan wuxuu aad iyo aad ugu hadal qabsadaa 1991 baa loo noqonayaa farmaajo iyo taageerayaashiisu ma ka fakareen 1991 in loo noqon karo haddii aysan waxaas u dhicin waxaan rabaa inaan taariikhdaas dib ugu noqdo ma jecli inaan dib ugu noqdo laakiinse 1991 dimbaynu ugu noqonaynaa waxaynu miiska saari doonaa yay tahay in lagu cabsiyo 1991 aniga iyo ayaan la xuseen cabdi mareexaan iyo xawaadle laakiin sidaas leeyahay waxaan aaminsanahay ayaan inuu fikirka leeyahay xawaadlana uusan la qabinin laakiinse haddii qabiilkii la weeraro dabcan qabiilkii qofku ka dhashana wuxuun baa gaaraya raalli kama ihi waana ka raalli gelinayaa runtii laakiinse waxaa la rabaa taariikhdu waa wax cad maxamed siyaad bare 91 xamar waa laga saaray haddii lagu yiraahdo taariikh baa la sheegay mareexan xawaadle inaan wax ka sheega ma rabo alule xawaadle muunikaanu yaqaanaa ma ba yaqaanba 88 dhabad laga yimid hal sana xamar la jooga dagaalka markuu dhacay 88 xamar laga yimid xawaadle ma yaqaan habartiis ma taqaan isla ma degaan waxay isku yihiin male ma fahamsana jira maskiin bay degan yihiin ma yaqaano waxuusan ogeyn xawaadle inay yihiin kuwii siyaad bare u taango u gudbiyey ma oga habargeeri xawaadle bisi ahayeen mursadaan ku jirin abgaalaan ku jirin cid kale kuma jirin ma garanayo isku ma oga taariikhda xawaadle ma yaqaano sidaa awgeed waxaan rabaa inaan dhaho war xawaadlow magaciin jiriye waxaan beenbeenta wajiye darbiga a ku haysaan ilma adeerayaalow firi qofka habargedirta in la caayay inaan la cayn diyaar u yahay hadda ku waran gaari raacay waxaan ka raacay beled xaawo aniga nin ayaa la haysta saaran laakiin 3 xawaad laha gadaal saaran naag mareexaana hal celi way bash taa naga aamus gaariga naga daqiirada mar dambe la hadlay waa afka ila soo gashay yur waa ku qeysh saan sheekadu u wadnay 12 saac gaariga dheeraa ku daarado kala ila soo caayay ila soo galay waa iga gar heli waay hooyadeen iyo hooyadeen dhashay wasay san u doodeen dhobleen markaan u dhownahay ayaa mid layla kasaaho meel fadhiya waxa weey wal qoran daba rogotaa gaxwaad laaho ma ku soo habarkiistu gabwood ee raga weey hal maran waxa maqlay eedii ku dhashay was anaka nacaynayda asan ya war ciidanka isi xaga xawaadluki ila shal waa fiirsanay xawaadlow habargedirta la caayayo fiirsiga fiirsanaysid ay u dhamaamay habargedir laakiin waxaan ku sheegayaa adiga walaalkayaan ku aqaanaa dadka ku dulminayana waa diidanahay waxaanse kuu sheegayaa xawaadle inay yihiin dadkii badbaadiyay diiriye maxamed siyaad barre ayna ahayeen halka gabar ninkii siyaad barre ka qabay mareexaanu wax soo ag dhigta ina maxamed siyaad barre ninkii badbaadiyey ina maxamed siyaad barre ay badbaadi weysay xawaadle maxaa kula kaftamaysaan xawaadle waa nool yahay cali sabriya xalana waa nool yahay haweeye maxamed siyaad barre u qabay waa badbaadi waayeen mareexaan 10 xabbay ku dhufteen dhaawacna maydna uga tageen meydii
علي سبريه حالنا وحو بدبادي اسقو داوع ديريه محمد سياد بري من لا كفتنتان حوادله سو انا وجهه هوس فيرسان ما وانيك غبدي ني قبي ان محمد سياد برو قبي سياد برو جوغاد ku disheen na ka soo tagin gacanta qabatay ninkayga hayga wadina gabadhaas gabar xun ma ninkayga hayga wadina ay gacanta qabteen waan la wajiteen arikaas eeda adinka dalbaday ha noolaato waxay ahayd dagaal lala galay reer galbeed ku soo duula Soomaaliya oo Yurubiyaana waxa la galay Soomaali ha noolaatadii yaa la yiraa dadka ku dhintay 96 hawiye waaye xawaadle 7 qof ay kula hayeen waxa kamid ah 2 nin oo la kala yiraahdo Maxamed Roble naanaystiisa waxa la lagma tage waa nin xawaadla oo adeerkiis ah ninkan ha noolaata baan leenahay waa ku dacweynayna fi dhaqan xumada cidaas iyo akhlaaq xumada ninkaas baadiyaha ka yimid nooga sheekeynay nin kala gabiyay waxa la ahya wadani nin cayro aha waxa aadan liban حاج aadan ahmed liban waa nin xasan leeyo raar dheera ahya wadani nin xawaalada biridan ba sheeganay arki doonta ha noolaato waxay ahayd Soomaaliya ha noolaato kelmad liira ee wagar dhax ha noolaato maahin naanays qofaydna maahin sida awgeed waxaan rabaa intaas inaan ugu gudbo Cadow Axmed Guuleed asna waxa uu ahaa nin xawaadla labadaba waxa waaye ayaan le awowiyalkiis waaye adeerka abis ninka dhalay la dhasheen sida awgeed taariikhda qofku uu wax ku leeyahay in aad ku handadid ama aad ku xadgudubtid waa faham darada haday wagar dhaxay aad la joogtaan dhabad waa akhlaaq xumada aad la taagnaydeen xuduudda ka xandhaale iyo dacdheer amxaarabaynu nahay calanka ahmaarada baynu harsanayna waa akhlaaq xumadii amxaarada aad ku soo gelisay waa midii hadda aad qaab dhagax ku dhiibteen waa midii dadka aad ku leyseen waa midii Soomaalida amita ku diidaan war ufta qarsada halkaasna waxaan ugu gudbayaa afareydi xumaad hadii waxay aan isii dhigeysiyo waa ku laboonaysa ninkan ma dhigeysan kartaan marixaan waxba lagama sheegin maxamed siyaad barre waxba lagama sheegin waxay dhigeysan waxaan dib u noqono ayaanle wuxuu isticmaalaa erey bixin runtii aan isleeyahay cidda lehna ma yaqaano gaf bayna ku tahay inuu isticmaalo erey bixintaas waxa weeye ha noolaato waxaan maanta ayaan la barayaa ha noolaato qofkii sameeyey horta inuusan awowgiis ahayn dhaxal awowgii uga tagayna aysan ahayn laakiin say tahay aniga awowgay waxaan isleeyahay ereyga ha noolaato shakhsiga bixiyay wuxuu ahaa Xuseen Cali Maxamed nin wagar dhaca xilligaas wagar dhaca xamar ma taqaan horta dadka meesha ku dhintay yay hayeen ma qof wagar dhaca ku leeyahay qabiiladay ahayn dadka meesha ku dhintay dadka hawiye markay hadli waayeen wax kasta oo ilaahay waa la sheegtay ha noolaato dagaal la yaqaano caana oo dad Soomaaliyeed oo badan ku dhinteen 95 hawiye ahaayeen way ha noolaato awowgay buu ahaa wagar dhac buu ahaa ha maqaawamadii aniga aan qoran wagar dhaceed ilaah wada amarle waa dadka kaliya xawataako anaka fajiistiisiyaad baro talyaaniga wax ka dil dadka Soomaaliya waxa ah wadani warnimayahu meel dheer aan ku dhacnay aan isdaba qabanno hawiyo waraan isdaba qabanno waxaan u soo noqonayaa walaalayaal dadka hawiye ee magaalada Muqdisho jooga waa la idin afgambiyey dabada la idin foorariyey rag iyo dumarba waa la idin afgambiyey raggiinni xaniyaha laga dhuuqay masawirada laga qaaday gabdhihiinina waa inta lacag la siiyaa la yiri ragga filimada ka soo duuba iyo kuwa kale oo dibadda laga keenay aqliga leen ka garaacay morar soo jaarin ku sameeyay meel dheer aan ku dhacnay stand up for your right hawiyo stand up for your right xaqeena u istaaga Muqdisho maqaam hayaalato golaha badbaadada banaadir golaha bulshada banaadir Umar Finish xaniyaha laga dhuuqay wuxuu og yahay male walaalayaal guuleysta waa goor damban soo galay ambuurada iska karsanaya digala dabka isaaran hawiyaan ahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh